halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah ra'iisul wasaare Roble oo abaabulaya in doorashada kursiga Fahad Yaasin lagu qabto magaalada Muqdisho iyo xiisada oo markale cirka isku shareertay qoorqoor oo bahdilay Cabdikariin Xuseen Guuleed una diiday xildhibaanimo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Axmed Madoobe iyo Roble oo wada dejiyay qorshe lagu wiiqayo siyaasadda gobolka Gedo ee madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble oo magaalada Muqdisho dhoolato siyaasadeed ka sameeyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal oo xildhibaanimo u doontay Puntland iyo guddiga doorashooyinka oo laga dayrinayo sidoo doorashooyinka ku sii hogaamin karo iyo dawladda Ukraine oo si rasmi ah u dalbatay inay ka mid noqoto wadamada reer Yurub qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsoon ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba kulanti wacan oo wanaagsan halkani waa dunida TV fadlan daawade hadii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato hamogaana subscribe saarta YouTube kan kuna soo biirto mahadsanida aynu ka horeynaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabay qorshe uu abaabulayo in kursiga Fahad Yaasin markale lagu doorto magaalada Muqdisho iyadoo xiisada kursigaasi ka dhalatana cirka sii shareerayso Roble ayaa la sheegay inuu kulamo la qaatay qaar ka mid ah siyaasiyiinta beesha reer Xasan iyo odayaal dhaqameedka waxa uu kula dardaarmay in ay diyaar u noqdaan sidii ay door uga qaadan lahaayeen in doorashada kursiga Hoobe 86 ay ku dhacdo si cadaalad ah odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta uu la kulmay ayaa sheegay in kursigooda laga soo boobay inay u baahan yihiin in kursigooda lagu qabto goob aan looga boobin oo si cadaalad ay ugu tartamaan Khalid Maxamuud Gaabane wuxuu ka mid yahay musharaxiinta kursiga laga dhacay wuxuuna dalbaday in kursiga doorashadiisa lagu qabto magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada Afisyoone waxa uu sheegay in lagu boobay kursigooda magaalada Beledweyne sidaas darteed aysan aamini doonin ayna u baahan yihiin in doorashada kursigan lagu qabto teendhada Afisyoone oo amnigooda si weyn loo adkeeyo waxa uu sheegay inay u baahan yihiin cadaalad iyo kursigan inuu noqdo mid xor iyo xalaal oo dhinacyada dhan ay u tartamaan arrintan ayaa la aaminsan yahay inay tahay tilaabo si weyn looga soo shaqeeyay oo mar kale dhabarjab ku ah Fahad Yaasin dhawaan warqad ay shaaciyeen guddiga xalinta khilaafaadka ayay ku sheegeen in kursigaasi fasaxeen balse daqiiqado kadib ayay bilaabeen in guddiga doorashooyinka ay barahooda bulshada ka saaraan gaar ahaan guddiga xalinta khilaafaadka taas oo mar kale Fahad Yaasin iyo jab ku riday qorshahan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay wadaan ayaa sidoo kale la sheegay in ay suurtagal tahay mid laga mir dhaliyo maalmaha u dambeeya ee doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay inuu qorsheynayo in xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan kuwa lagu eedeeyo dawlad goboleedyadu inay si baan u soo boobeen kuraastooda in magaalada Muqdisho lagu qabto halkaas oo isagu hormood ka noqon doona qabashada kuraastaasi tilaabadan haddii Roble uu ku dhaqaaqo waxa ka dhigan tahay jab xoogan oo soo food saari doona madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariin qoorqoor ayaa si weyn u bahdilay Cabdikariin Xuseen Guuleed musharax madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa damac uga jiray inuu u tartamo kursiga tirsigiisu yahay Hoobe 60 waxaana kursigaasi markii hore ku fadhisay Maxtaale Warsame Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa doonayay in kursigan uu gacanta ku dhigo si uu ugu noqdo mid xasaanada una ku dhaxgala baarlamaanka Soomaaliya si uu codad uga raadsado balse arrintan waxa la sheegay inuu qoorqoor ka hortagay asagoo kursigaasi ka dhigay qoonda dumar guddiga doorashooyinka ee dawlad goboleed ayaa soo saaray jadwalka doorashada 6 kursi oo loo xiray in uu noqdo kursiga Cabdikariin uu tartamay qoondaha weena sidoo kale qoorqoor waxa uu qoonda dumar ka dhigay kursigii uu tartami lahaa inda qarshe taliyii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inda qarsho muddo badan qaranka u soo adeegay waxa la sheegay in Farmaajo iyo Fahad Yaasin ay juhdi badan gelinayaan sidii doorashada looga reebi lahaa iyagoo ugu dambeyn kursigiisii lagu soo qoray qoonda dumar waxa la sheegay in la qorsheeyay in kursigan ay u tantarto Faadumo Faande gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug oo Fahad Yaasin gacan saar leh tilaabadan ayaa durbadeeba waxa ka carooday beesha uu ka soo jeedo General Dhaqarshe loo bagay waxayna sheegeen in qoorqoor uu ku sameeyay cadaalad darro iyagoo wacad ku maray inay qaadi doonaan tilaabooyin adag
maalmihii la soo dhaafay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxa olole ka waday General Indha Qarshe waxaana xirtay mid kamid ah wadooyinka waaweyn ee gaalkacyo isagoo ciidamo badan sameystay lama oga waxyaabaha ka dhalan kara kuraastan qorqor oo dumarka u xiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay inay ugu dambeyntii gaareen go'aan ku saabsan in doorashada gobolka Gedo loo wareejiyo meel aan ahayn gobolka Gedo Axmed Madoobe iyo Roble ayaa hoga tusaaleeyay sida macquulka ku noqon karto in gobolka Gedo oo aysan gacanta ku hayn dawladda goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaruhu si ay doorasho uga dhici karto Roble waxa uu sheegay inuu san hubin cid ammaanka sugaysa iyo cid damaanad qaadaysa in doorashadaasi ay u dhacdo si hufan sidaas darteed waxa la sheegay in labada dhinac ay isla qaateen in doorashada go'aan laga gaaray kama dambaysa taas oo ah in laga wareejiyo gobolka Gedo waxa la soo jeediyay in ay muhiim tahay in doorashada loo wareejiyo dhinaca magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa doonaya in doorashada 16 kursi uu gacantiisa ku maamulo si uu ugu dambeyn ugu hubsado inuu ku soo baxo shakhsi asaga taageersan arrintan waxay durbadiiba u muuqataa in ay si weyn uga falceliyeen kooxda madaxweyne Farmaajo kuwaas oo dhaleeceyn xoogan u jeedinaya sheegayana in Roble iyo Axmed Madoobe ay kuraas dad shicibi leeyihiin boobayaan waxay sidoo kale ku baaqeen in laga maarmaan ay tahay in dadku ay midoobaan sidii ugu hortagi lahaayeen aragtida Roble iyo sidoo kale Axmed Madoobe Roble ayaa u magacaabay xibno ka kooban 7 xibnood oo loogu talagalay inay ka soo tala bixiyaan sidii doorasho ay uga dhici lahayd magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo balse arrintaas ay dadka qaarkood ku tilmaameen inay tahay mid aan waxba soo kordhinayn dhanka kale tan Axmed Madoobe ayaa la kulmay siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo kuwaas oo runta u sheegay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa u sheegay General Fartaag oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyihii qoreete ee gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo madax ka tirsan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed inaysan doorasho ka dhici karin gobolka Gedo waxa la sheegay in General Fartaag iyo Xasan Dheere iyo gudoomiyihii qoreete ee gobolka Gedo Maxamed Maxamuud Aadan uu u sheegay Axmed Madoobe in doorashada aysan ka dhacayn gobolka Gedo sidaas darteedna lagu heshiinayo in doorashada lagu qabto Kismaayo ama gabi ahaanba dib loo dhigo oo doorashada madaxtinimada kadib la soo doorto xibnahaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa ku wargeliyay xibnaha ka soo jeeda gobolka Gedo inay diyaar u noqdaan soo jeedimaha ka imaanaya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo midka madaxda Jubbaland General Fartaag iyo madaxda kale ee gobolka Gedo ka socday ayaa ka codsaday Axmed Madoobe in doorashada lagu qabto magaalada Garbaharey balse arrintaas ayuu gaashaanka ku daruuray wuxuuna sheegay inaysan suurtagal ahayn meel uusan Jubbaland ka arrimin in doorasho lagu qabto ra'iisul wasaare Roble ayaa dowlad siyaasadeed sameeyay kadib markii uu la kulmay xildhibaanada Banaadir ee dhawaan la soo doortay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa habeenka xalay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay 5 xibnood ee beelaha Banaadiriga dadka uu la kulmay waxa kamid ah Khadiija Al-Maqsuumi iyo sidoo kale xibnaha kale ee beelaha Banaadiriga waxaana kala hadlay sida muhiim u tahay in dalka isbedel loo horseedo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegay in dalka marxaladda adag ee uu galay ee doorashooyinka amni darrada iyo dib u dhacyada dhanka dimuqraadiyadda ay sabab u tahay hoggaan xumo sidaas darteedna ay laga maarmaan tahay in sanadkan dalka loo dooro madax samata bixi karta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa madaxda uu la kulmay ka dalbaday in laga wada shaqeeyo isbedel dalka ka dhaca iyo in laga wada shaqeeyo horumarka guud ee dalka ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale u mahad celiyay gudiyada doorashooyinka ee beelaha Banaadiriga dadaalkii iyo juhdigii ay galiyeen in doorashada la soo gabagabeeyo hore wuxuu sidaan oo kale ula kulmay xildhibaanada beelaha gobolada waqooyi waxaana wada olole ballaaran oo ku saabsan sidii dalka uga dhici lahayd isbedel ugu dambeyntiina gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal Muuse Gele ayaa lagu soo waramayaa in magaalada Boosaaso ee gobolka Bari uu joogo sidoo xildhibaanimo u soo qaadan lahaa wararka iyo macluumaadyada aynu helay ayaa sheegaya in Muuse Gele uu magaalada doonayo inuu ka soo qaato kursi xildhibaanimo isla markaasna maamulka Puntland uu xiray
kursigan waxaa horey ugu fadhiyay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xayir Ibrahim waxaana la sheegay in beeshiisa laga wareejiyay gaar ahaan jufo hoosaadka wasiirka ayaa jufadiisa hoose laga wareejiyay waxaana kursiga loo wareejiyay jufada uu ka soo jeedo Muuse Geele taasoo dad badan ay muujiyeen in Muuse Geele uu doonayo kursigaasi urariya macluumaadyo ayaa sheegay in Saciid Cabdullaahi Deni uu kursiga la doonayo inuu Muuse Geele uu ku soo baxo hadii kursigani uu Muuse Geele dabca ka galo inuu soo qaato waxay ka dhigan tahay inuu ka tagi doono gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal taasoo mar kale caqabad ku ah howlaha doorashooyinka ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Ukraine ayaa dalbaday in Ukraine ay ka mid noqoto dalalka Yurub tan iyo markii dagaalka ay ku soo qaaday Russia madaxweynaha dalka Ukraine waxa uu bilaabay in marada uu dhaxda ku xirto si uu u raadiyo ugu yaraan in uu helo taageero ballaaran oo dhinaca difaaca iyo sidoo kale iskaashiga ah muhiimadda ay leedahay in la helo dad ku garabsiiya Ukraine dagaalka ay kula jirto Russia ayuu ku tilmaamay madaxweynaha dalka Ukraine mid muhiim ah warqad codsi oo uu saxiixay ayaa lagu sheegay inuu ku dalbanayo in midowga Yurub ay si rasmi ah ugu biiraan iyagoo sidoo kale tan doonaya in NATO ay qayb muhiim ah ka noqdaan wararkii macluumaadada kale ee aynu helayna ayaa sheegaya in dawladaha Jarmalka UK iyo sidoo kale dalal kale oo Mareykanku uu qayb ka yahay ay dalka gaarsiiyeen Ukraine gawaari aad u fara badan oo dhinaca dagaalka iyo saanad kuwaas oo la sheegay in lagu qaaday tareen dheereeya wararkii macluumaadadu waxay sheegayaan in dalalka wadamada NATO ay si toos ah ugu biireen dagaalka waxaana taasi aad looga cabsi qabaa inay sababto in dawladda Russia ay adeegsato hubka waxgumaada ee nuclear-ka warkaad ka daawaneyseen dunida TV waanaga intaas fadlan daawade hana moogaan inaad nagu soo biirto oo subscribe saarta YouTube-ka kala mid noqoto mahadsan